Yo guys, one salaam dhamaan meel walba caalamka ka joogtiin waa aniga walaashin Ikraan iyo aniga Amiin Xasan idin leh ku soo dhawaada mar kale iyo YouTube channel-kayga hadaad ku cusub tahayna waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saartid aadan ka hilmaamin inaad taawatid gambaleelka saad ula socotid muuqaalada soo socda Ikraane maxaan haysaa su'aalan ku weydiinaya Amiin okay su'aasha waxaan rajaynayaa inay fududaato aysan ugu adkaan ku adkaanayse okay sideen ku ogaan karaa qofka inuu jecel yahay wow horta waa su'aal aad iyo aad u muhiimsan waayo maanta qof walba aad aragtid xiriir ayuu leeyahay midda u horeyso waa inaad kala ogaataa qofka inuu ku jecel yahay ama inuu kaa helay waayo markaad ogaatid qofka inuu ku jecel yahay ama inuu kaa helay markaas ayaa go-aan ka qaadan kartaa 3 qodobood ayaan jeclaystay ama 2 qodobood ayaan jeclaystay inaan la wadaago kadib waxaan rajaynayaa markaad ogaatid qodobada aan rabo inaan idin sheego inaad ku fududaan doonto saad ku ogaan lahayd qofka inuu ku jecel yahay ama inuu kaa helay midda koowaad qofka ku jecel horta wuxuu jecel yahay in mar walba kula hadlo asiga uma saxsana yani time ma lahan ha yaraado timekiisa ha noqdo 2 daqiiqadood ama ha noqdo 2 saacadood asiga maalin kasta waxaa sharti u ah inuu xaaladaada ogaado sidee kusoo kacday sidee u seexatay laakiin midka kaa helay asiga wuxuu kusoo wacayaa markuu asiga yani ama aad adiga aawacdid asiga ma jeclo inuu yani hadalkiina yaraado wuxuu jecel yahay inuu hadalka dheeraado waayo wuu xiiseenayaa hadalkaa wuu xiiseenaya jecel kuu qabo maahan yani wuu xiise kuu qabo waxaad arkaysaa inuu hadaladiisa dheeraaday hadhowt haddaa ka jartid ilaa maalin danbaa sugaya mise wiig kadib markaas ayuu kuu xiriirinaya marka kuu xiriiriyo asiga wuxuu jecel yahay inuu waqtigiisa dheeraado midda kuwaas waa middaas midda labaadna waxay tahay qofka inuu ku jecel yahay ama inuu kaa helay waxaad ku ogaan kartaa qofka ku jecel wuxuu kuu qaadanayaa saad adiga tahay oo wax makaa bedelayo saa adiga tahay ayuu kuu ogolaanaya يعني دبعات حن لها ومسوى ناكسنا أسيجا وحتى واحد مباركة مرة على يري جعلك عندما لهن صح ما سو مركا قف كجعل وحقوق علىنا سات أديك تهاي لكن قف كاهلة وحتى أركي سمعنا هوري وكل صاحب ويا كدب حقوق هاي أنا قد دبعات هذا كمهلين واي أسيجا وحقوق جعل مبهاي بني كان وكهلتان أو كليا أدو جعل هالها جعلك عندما لهن so asiga wuxuu ka isku deenayo inuu asiga ka bedelo laakiin qofka ku jecel wuxuu isku deenayo inuu asiga sidoo adiga tahay inuu ku aqbalo ama inuu asiga isbedelo laakiin qofka ka helay asiga wuxuu isku deenayo inuu adiga wax badan ka bedelo taas marka waa inaad ogaataa ilaa waxaan rajaynayaa labadan shay hadaad u fiirisid yani ama aad ogaatid qofka inay ku fududaad doonto inaad ogaatid qofka inuu jecel yahay ama wax inuu ka helay sidoo kale qodobka saddexaad ama mid ugu dambeeyo ee tahay aad ku ogaan kartid qofka inuu ku jecel yahay ama inuu kaa helay tusaale ahaan hadda qofka uwaxa jecel yani ma jecla inuu geedka kasoo jaro yani wuxuu jecel yahay inuu waraabiyo oo sii wanaajiyo hadda waxaa laga yaabaa inuu uwax meel kusoo gato inuu yani binaanka inuu yani ku abuuro laakiin midka ka helay wuu soo qaadaya geedka ayuu kusoo jaraya xaafadiisa ayuu geysanaya kadib maalmo kadib uwax hadduu geedka laga jarona yani midabkiisa ayaa bedelmaayo siduu yahay uu bedelmaayo yani wuu dhamaanaya markuu dhamaado maba iswaalayo mid kale ayuu doonanaya so marka qofka markuu yani uu kaa helay maalmo kadib uu ku xiisa dhacaya mid kale ayuu doonanaya laakiin qofka ku jecel adiga ayuu ku ilaalinaya waxaan rajaynayaa inaad fahamtay su-aasheedana waxaan rajaynayaa in dad badan ay anfaci doonto marka intaas waa inaad ogaataa waxaad kala saari kartaa kadib qofka inuu ku jecel yahay amaba inuu kaa helay I hope inaad muuqaalkayga idin cajibgeliyay haddaad ku cajibgeliyeen waxaan ka codsanayaa inaad la wadaagtid asxaabtaada iyo ha ka hilmaamin inaad comment like share inaad ka bixisin intaan ku wada kulmi doono muuqaal kaloo sidaan ah waxaa idinka tegayaa sida iyo nabadgelyo